Given the nature of the IED threat here in Somalia, it's essential that we sustain the capabilities of the national security forces, and particularly so now that we're thinking about the eventual and gradual withdrawal of the AU forces. qalab intaan ka badan iyo tababar intaan ka badan cadowga waxaan kula jirnaa markaan dagaalo adag waxyaabaha ugu badan ee isticmaalaan waa in miinooyinka ay jidadka ku xiraan haddii aan ka gudubno miinooyinkaas jidadka ay ku xireenna waxaan xaqiijin karnaa deegaan kasta inaan gaarno. There is a lot more work to do, not only in training teams, but also in all the other aspects that require to be in place for a sustainable IED capacity, a Somali-led IED capacity to tackle these threats as they go forward.